tababarkan oo soo qabanqaabsay waaxda cashuuraha bariga wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo khasnajiyada waaxda cashuuraha bariga ee gobolada iyo degmooyinka dalka. Agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdisalaan Axmed Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarka ayaa sheegay in khasnajiyada lagu tababari doono taariifadaha cashuuraha, hagayaasha khasnajiga, xeerka anshaxa shaqaalaha, warqadda dhowrista xogta iyo wax ka beddelka cashuuraha wadamarista iyo qodobo kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in hanaanka dib u habeynta maamulka maaliyadda ee wasaaradda horumarinta maaliyaddu ku howlan tahay laga dheehan karo shaqooyinka ay hayaan khasnajiyadu, taasoo uu tilmaamay in loo baahan yahay in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda. Waxaanu kula dardaarmay khasnajiyada madasha ka soo qayb galay inay ka faa'iideystaan tababarka, waxaana kamid ah hadalkiisii wasaaraddu dib u habeynta maamul wanaagga ee wado hawlaha guud ee qaranka ay ugu jirto fariimaha iyagu in ay shaqaynayaan iyo in aanay shaqaynayn iyo in sida ay madaxdu har iyo habeen u fikirayso fikirkii in uu camal isku bedelay iyo in aanu isku bedelin intaas oo dhan waxa laga dheehan doonaa xafiisyadiina hoose ee shacabka iyo bulshada iyo cashuur bixiyaha sida maalinlaha ula kulmaya. waxa hoos la idinku soo dhaadhici doonaa insha Allah oo aanu doonaynaa tababarkeeda iyo barbar istaageedaba inaanu idinku barbar taagnaano in aad muujisaan adeeg wanaag macaamilka iyo cashuur bixiyaha iyo bulshooyinka kala duwan ee xaafadaha hoose iyo meelaha hoose aad cashuurta kaga ururinaysaan. waxa la doonayaa in aad u macaamishaan xagga raaligelinta, xagga adeeg fudaydinta iyo xagga soo dhaweynta sidii ood meherada gaar ah sidaad meheradaha gaarka ah iyo ganacsiyada gaarka ah dadka iibka iyo marketingka sameeya ay ula macaamilaan sidaa iyo si ka sii xeel dheer inaad ula macaamishaan ayaa la doonayaa ganacsatada hawlaha kala duwan. si taa loo helo waxyaabo badan baa wasaaradda ku xidhnaan kara sida agaasimuhu sheegay qalabaynta iyo daryeelka xafiisyada, tababarada oo la idin xoojiyo, hagayaashii habraacyada oo soo dhaadhaca. laakiin waxa aanu doonaynaa oo wasiirku runtii nagu hogaaminayaa guud ahaan qarankuna ay ka wada socdaan in aynu wax weyn ka bedelno cidda aynu cashuurta ka qaadayno, habka aynu ula macaamilayno, habka aynu xogta uga helayno, habka aynu warka u gaarsiinayno inaynu wax weyn ka bedelno oo hoos loo soo dhaadhaco. waxaana sanadkan noqonayaa sanadka isla xisaabtanka iyo magaranaysa ay daahfurnaanta hadii alla yiraahdo. qodobkayga labaad ee ka ku daraya waxa weeyaan hore agaasimuhu uu sheegay cashuuruhu horumar baa la idinka doonayaa. habkaad wax u qaban jirteen system ayaa yimid, habka aad wax u qaban jirteen fudaydin baa timid, wax walba waa la idin fudaydinayaa insha Allah. waxaa la doonayaa sida ugu fudud in aad adeegii iyo shaqadii khasnajigeed qabanaysay loo fudaydiyo. wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwoohinta Jaamac Xirsi oo halkaas ka hadashay ayaa bogaadisay hablaha khasnajiyada ah ee goobta ku sugan, waxaana kamid ah hadalkeedii maadaama oo aan mar kastaba u doodo haweenka oo aan idhaahdo boosaskii ku habboonaa lama geyn oo hablaha waxa loo isticmaalaa inay noqdaan sekretariyada kaliya iyadoo inanka la aqoon ama ka aqoon badan inay markhaati iiga dhigaan inay madashu tahay madal habluhu ku badan yihiin isla markaana xilalka ugu mudan ee qaranka ay hayaan. waa ii farxad runtii aad iyo aad baanan uga mahad celinayaa. waxaan si gaara u xusayaa hablaha kaashiyarada ama qasnajiinta qaranka ah ee gobolada iyo goobaha kala duwan iyo duruufaha kala gaarka ah ku shaqeeya ee madashan ku sugan. shaqadii igu horeysay ee aan bilaabo 85tii waxaan noqday qasnajiga wakaaladda biyaha ee Burco. waan dareemi karayaa culayska iyo dhibaatada ay leedahay runtii qasnajigu uu qabo. waa dhibaato aanay cidina la ogeyn, dadkuna uu qabo dad la tijaarsiiyey oo nimcadii qaranku lahaa gacanta loo geliyay. waxaan mar labaad idin leeyahay Eebbe Subxaanahu wa Tacaala idinku asturo hana idin fududeeyo.
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shahaadooyin guddoonsiiyay khasnajiyadii ugu fiicnaa sanadkii dhamaaday 2020 ayaa hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu ka warramay muhiimadda tababarkan uu leeyahay shaqaalaha waxaana ka mid hadalkiisii innakoo soo maray sanad aad iyo aad u adag innakoo keliya maahay caalamka oo dhan ba ku adag oo baqdin badan aynu ka qabnay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu asturay oo sanadkaas bila mushahar muu daahin bila ciidanka raashin looma waayin deyna maynaan qaadanin wixii aynu ku talagalay inkastoo 100% sidii ahaydaan usoo bixin wax badan inagama dhigmin taana waxaa keenay dadaalkiina iyo dadaalkiinta kaleba kawaan ku hambalyeynaya waan ka mahad celinaya runtii horta khasnajigu waa muraayadda iyo wejiga laga daawado wasaaradda waa halka shicibka ama muwaadinka iyo dowladdu ay ku kulmaan weeye runtii dadka muwaadiniinta ee cashuur bixiyayaasha haddii ay dhib kala kulmaan markay cashuurta bixinayaanna waxay iyagu ula dhigan tahay inay dowladdu dhibaataysay haba shaqadeeduba inay xun tahay haddii si fiican loogu adeego la soo dhaweeyana oo qofku isagoo faraxsan albaabka uu ka baxana wuxuu ka qaadanayaa fikir fiican habkaynu u shaqeynayo dowladnimadeennaba iyo wasaarad ahaanba marka runtii waxaad joogtaan meel aad iyo aad u muhiima waa idinka iyo dhalinyarada maalintii dee u baxda maxay dhahdaa suuqa ee wax soo qiimaysa amba yeedhmada samaysa labadaas bay dadku shicibka inaga arkaan marka shaqada haysan waa shaqo aad iyo aad u muhiima runtii weeye kaashiyerku wuxuu mas-uul ka yahay 4 wax mar waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay macmiilka marna lacagta marna buugaagtiisa iyo rikoodhadiisa marna dee agabku ku shaqaynayo waa 4taa wey waxaa laga yaaba hadda jeer nuusha ku hayno lacag qabashada laakiin runtii waxaa ka muhiimsan macmiilka ayaa ka muhiimsan marka yaynaan u arkin qofka cashuurta bixinaya noo yimaada qof inoo qaamaysnaa oo qaanan ku lahayn bixinayo keliya aynu aragno qof macmiilah oo mataqan inaka macmiil inoo ah marka sidii macmiil weyn u soo dhaweyno marka waxaa muhiima soo dhaweyntiisa hadduu su-aalayna weydiiyo hufnaantaynu uga jawaabayno warbixintaynu siinayno sidaynu u xaqsoorayno si dadku kugu soo kala horeeyaan haddaad ugu adeegtana qofku wuxuu arkay inaad cadaalad u samaynayso laakiin minka dhowr qof ay ku yimaadaan kii ugu dambeeyey aad ka horeysiiso markaa lafteeda cadaalad darun ka dareemaya moogti iyada laftigeeda marka aad iyo aad buu muhiim yahay saynu ula macaamilo una soo dhaweyno ulana dhaqanno qofka macmiilka ah dabcan kaasha dee waxay naga saaran xil laftigiisa tiradiisa hubintiisa sugudiisa daryeelkiisa dee xil bay naga saaran iskaa laftigiisa rikoodhadu waa aad iyo aad bay muhiim yihiin laftigooda in la ilaaliyo wasaaraddana waxaa saaran xil ah inay wasaaraddu idin daryeesho oo idin fududeyso sidaa u gudan lahaydeen xilkiina oo agab iyo qalabba waxaa u baahantiin iyo tababarba ay idin siiso oo maanta kulankeena baa ka mid ah runtii gudashada waajibaadka wasaaradda ee idinku aadan siduu agaasimaha guud uu sheegay waxaynu ku tallaabsanay geedi socod dib u habayn nidaamka maaliyadda waxaa runtii ugu horeeya inaynu fududeyno aba automate garayno habka aynu la macaamilo macmiilka habkaynu lacagta u qaadno habka lacagta loo bixiyo habkaynu u xisaabtano warbixinta u samayno waxaasoo dhan